kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka ka socda dalkaasi Turkiga. Wararka haddana soo gaaraya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan mar kale uu ku guuleystay doorashadaasi dibna loo doortay sida markaasi ay baahiyeen warbaahinada gudaha dalkaasi iyo sidoo kale warbaahinada caalamka. Recep Tayyip Erdogan ayaa markaasi helay tiradii looga baahnaa oo ah 50% oo uu markaasi ku daray 3 sida markaasi ay shaacisay madaxa golaha sare ee doorashooyinka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne markaa Erdogan uu ku hogaaminayo tartanka madaxtinimo ee dalka Turkiga isagoo markaasi helay 53.4% codad kala dhiibtay waxaana la tiriyay 75.4% sanaadiiqda markaa codbixinta sida ay muujinayso natiijada rasmiga ah ee hordhaca. guusha Erdogan waxay muujinaysaa dib u cusboonaysiinta kalsoonida dalka sida markaasi uu yiri ra'iisul wasaaraha dalkaasi Liibiya. Ra'iisul wasaaraha Liibiya Cabdulxamid Dabe ayaa isna markaasi u hambalyeeyay waxaana markaasi sheegay inay tan tahay guul markaasi laga gaaray doorashooyinka dalkaasi Turkiga. Waxa uu sheegay inay u tahay rajo dadweynaha markaasi dalkaasi Turkiga iyo guud ahaan caalamka iyaga oo markaasi sheegay in waxa uu markaasi sheegay in markaa tani ay wax badan ka bedeli doonto dhibaatooyinka wadamo badan markaasi lagu hayo. Erdogan ayaa loo arkaa inuu yahay nin markaasi garab istaagan wadamo badan oo muslimiina qaasatan kuwa markaasi dhibaatooyinka lagu hayo. waxaa dhanka kale ka hambalyeeyay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxda Soomaalida madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxda kale u hambalyeeyay waxaa ka mid ah qaar ka mid ah madaxda wadamada Carabda ayaa iyaguna markaasi ka hambalyeeyay. dhanka kale Erdogan ayaa waxa uu markaasi hore u sheegay inuu markaasi dhameystiri doono dhammaan ballanqaadyada iyo mashaariicda uu isagu markaasi hore u qabtay waxaana markaasi sheegay in guul uu isagu doorashada ka gaaro ay noqon doonto mid wax badan ka bedeli doonto jihada dalkaasi Turkiga ayaa waxa markaasi ka dhacay dhulgariir aad u xoogan sanadkan bishiisii 2 ee February ka oo ay ku dhinteen in ka badan 50,000 oo qof. Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u ballan qaaday in dhammaan dadkaasi ay mas'uuliyadda dowladda qaadi doonto in guryahooda dib loogu dhiso balse hadda waxaad moodaa in rajada dadkaasi la soo nooleeyay. Erdogan ayaa hadda markaasi waxa uu noqonayaa madaxweynaha Turkiga mar kale waxa uuna markaasi sii wada geedi socodkii isaga lagu doortay tan iyo sanadkii 2003 oo isagu markaasi noqday madaxweynaha dalkaasi Turkiga. haddaba ninkay ishayeen Kemal Kılıçdaroğlu ayaa isagu ilaa hadda aanan ka hadlin walow markaasi codadka la dhiibtay ee markaasi socoto 97% sanaadiiqda codbixinta ayaa la furay wareegii labaad. Erdogan ayaana waxa hadda uu markaasi helay 53 halka Kemal uu isagu helay 47.9%. sida hore guddiga doorashooyinka ee dalkaasi Turkiga ay u sheegeen waxa qofka lagu dhawaaqaya natiijada haddii uu markaasi helo codad gaaraya 50% marka ay xisaabta ay dhacdo. Erdogan ayaa doorashadii hore waxa uu gaarsiiyay 49 balse waxa uu markaasi ku guuldareystay inuu helo aqlabiyadda iyo in markaasi loo aqoonsado inuu yahay madaxweynaha maadaama uusan markaasi gaarsiinin. hadda maadaama ay markaasi jiraan in uu gaarsiiyay 53 waxa loo aqoonsaday inuu noqdo madaxweynaha markaasi dalkaasi Turkiga. wararka dheeraadka ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in markaasi xisbiyada isbahaystay mucaaradka uu hogaaminayay Kemal inaysan iyagu aqbali doonin natiijada doorashada iyagoo ay markaasi sheegayaan in laga cabsi qabo inay soo bandhigaan warar sheegayo in wax isdabamarin ay dhacday walow guddiga doorashooyinka ay iyagu ilaa iyo hadda ku adkeysanayaan maadaama Erdogan uu markaasi gaarsiiyay halkii looga baahnaa. 14 bishan May doorashadii dhacday ay mucaarad ka sheegeen inay ahayd mid si wanaagsan u dhacday balse u sheegeen in markaasi ay dadaal badan gelin doonaan inay mar kale ku guuleystaan doorashada. hase ahaatee waxa hadda markaasi jira in ay ku guuldareysteen. haddaba raggii kale ee tartanka ku jiray doorashada wareegii koowaad ayaa iyagu ku kala qaybsamay dhinaca ay markaasi taageerayaan. Sinan Ogan waxa uu ahaa ninka kaalinta saddexaad soo galay doorashadii wareegii koowaad ee dalkaasi ka dhacday 14 bishii May waxa uu markaasi taageeray Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AK Party. waxa uu markaasi isagu ninkan loo arkayay haddii uu taageero Recep Tayyip Erdogan in markaasi uu guul gaari karo. taasi ayaana hadda markaasi xaqiiqdeeda la helay oo waxa markaasi cad inay iyagu markaasi ku guuleysteen.
dhanka kale mucaaradka oo iyagu markaasi isgarabsanayay ayaa iyagu waxa ay markaasi heli waayeen ama gaarsiin waayeen aqlabiyadda halkii looga baahnaa walow sida markaasi codbixinta doorashadu ay guddiga ku sheegeen inay tahay qofkii gaarsiiyo boqolkiiba 50 inuu heli doono si kastaba ha ahaatee Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Turkiga waa mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo muuqaalka dhammaadkiisa fadlan subscribe noo saar muuqaalka sidoo kalena like iyo share ha naga hilmaamin waa mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي قوشوا نسيي مدحوينها ودنك تركيا دور الشديد دعدي وحاكو قوليستي مدحوين رجب طيب أردوغان الحمد لله إلهي باجبية قال دي إلهي باجبية كوي علمانيين تاها إلهي باكواس وحاس كسميي أو جبيي وحكست أو شرقولة أو لو مليقينه إلهي با كور استاغي إلهي با أنغانا دعاديني آن إلهي برييني نغا أقبلي قالوا واجبتي كوي دبردلفكو أهانا واجبين مركا سر رسمية وحا لو سوغيا نتيجة كما دنبايستا قدقى دورشدا لكن سر رسمية ميديا وحا يقول رواقين ما دام عضدكي لتريي ووحول بالله كالهلي إنكي أضغاها laga adkaaday Kamal Kılıçdaroğlu Aljazeera ay idin tuso oo wariyaasheedu ay ku dhawaaqayaan natiijada madaxweynaha rasmiga ah inuu yahay Recep Tayyip Erdogan aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawadayaal aan daawano Aljazeera oo si rasmi ah u sheegtay natiijada kama dambaysta markii codadkii oo dhan la tiriyay inkastoo ku dhawaaqida guddida kaliya markan aan duubay ay dhiman tahay laakiin inta aan soo saarayo laga yaabo inay ku dhawaaqaan laakiin hawshu way israacday alxamdulillah waa guulaysanay ilaahay ducadeena waa naga aqbalay وهي تدخل المئوية الأولى لها تنهي المئوية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الفائز بانتخابات عام 2023 إذن بشكل واضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحسم هذه الجولة الثانية أمام منافسه كمال كليشداروغلو مرشح حزب الشعب المعارض. واتهاي داوديال waxaa soo kale dabaaldeg ayaa bilowday caasimada Ankara madaxweyne Erdogan ayaa tagay maanta markuu Istanbul ka codeeyay meel waxaa jirta shurfa la yiraahdo oo uu ka qodbadeeyo meeshaas ayaa dadkii oo dhan ku sii qulqulayaan wadooyinka dhan waa xiran yihiin dadkii oo dhan halka bay dabaaldegi u tageen aan idin tuso iyagoo dabaaldegaya وبعد فرز 99% من الأصوات من صناديق الاقتراع الرئيس التركي بأريحية يتقدم ويعيد ذكريات انتخابات 2014 بذات النسبة عندما كان مرشح للمفارقة مرشح للمعارضة توافقه هو أكمل الدين إحسان أوغلو حينها الرئيس التركي كانت له تقريبا هذه النسبة وهذا الفارق waxaan eegaynaa mucaaradka waxaan eegaynaa warbaahinta muxaafadka iyo waxaan eegi doonaa guud ahaan warbaahinta dalka Turkiga iyo guddiga doorashooyinka ayaan eegi doonaa dhanka mucaaradka haddii aan ku hormarno daqiiqada ka hor waxay soo daabaceen in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ka horeeyo Kamal Kılıçdaroğlu codadka la furay 96% ay gaarayaan 50.64 uu ku hogaaminayo Erdogan ayay soo qoreen halka Kamal Kılıçdaroğlu ay u soo qoreen waa dhanka mucaaradka ee 49.36 dhanka guddiga doorashooyinka haddii aan eegno waxay leeyihiin codadka ilaa iminka la furay waa 96.2% Recep Tayyip Erdogan ayaa hogaaminaya 52.91 Kamal Kılıçdaroğlu waxa uu haystaa 47.9 sidaasna waxa lagu baahiyay wakaalada wararka Anadolu iga raali noqda Anadolu ayaan ula jeeday halka aan ku iri guddiga doorashooyinka waxay sheegeen sida tan waxay leeyihiin 89.8% ayaan haynaa ilaa iminka tirada sanadiiqda codbixintooda la tiriyay waxa hogaaminaya Erdogan 52.72 ayuu haystaa Kamal Kılıçdaroğlu 47.2 marka waxa muuqanayso in horta aad isugu dhow yihiin inkastoo farqigii markii hore u dhaxeeyay wax yar oo ka agdhow oo u dhaxeeyo Erdoganna waxay u badan tahay hadiiba uu guuleysanayo marka codadkan la dhameeyo in 52 ilaa 53
uu ku qaadi doono waa sida mar walbana la saadaalinayay tan iyo markii loo gudbay wareegga labaad ee doorashada oo aan warbixino badan idinla wadaagnay dabaaldegyo xoogan ayaa ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga sida magaalada Istanbul iyo magaalada Ankara labada dhinacba waxay la soo baxeen boorarkoodii waxay la soo baxeen gurbaanadoodii waxay la soo baxeen gaadiidkoodii ay caanka ku ahaayeen in ay baabuurta hoonkooda ay si weyn ay maxaa la yiraahdaa u yeeriyaan magaalada Ankara aan iraahdo magaalada Istanbul dhammaan taageerayaasha xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa isugu soo baxay agagaarka deegaanka Kızılay lagu magacaabo waxay u muuqanayaan marka in ay dabaaldegyo sameynayaan codadka 24 ilaa iminka Erdogan inuu helay Kemal Kılıçdaroğlu waxa uu helay 2 milyan 108,000 taasoo micnaheedu ay tahay kala bar in ilaa 20 milyan oo kale tirinteeda inay dhimayeen kastoo haddana heerka sanaadiiqda la furay lagu waramayo inay gabagaba ay yihiin waqtigan kula hadlay maxaa isbedelay tirada sanaadiiqda dhanka markaan eegno guddiga waxay leeyihiin 89.8 ayay maraysaa intaan kula hadlayo ayay wax isbedelayaan sababta sanaadiiqda la tiriyay ama la furay codadkooda ay sidaan dardarta ugu socdaan waxay tahay maadaama Erdogan iyo Kemal codadkooda oo kaliya la tirinayo oo culayskii baarlamaanka oo meesha uu ka baxtaas ayay tiina dhafrisay ilaa habeenkii 3 habeenimo ay isla gaarnay markii la joogay 14 bishan laakiin hadda waxa muuqanaysa in iyadoo la joogo todobadii fiidnimo iyo qadar 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ah in la soo gabagabeyn karayo doorashada laakiin guddiga mar walba sida sharcigu uu yahay 3 ayay u badan tahay ama 9 aan iraahdo ama 3 saac oo habeenimo xilliga Geeska Afrika inay natiijada ku dhawaaqaan ilaa iminka Erdogan ayaa hogaaminaya haddii sidan ay ku dhamaato tirinta codadka Erdogan ayaa ah madaxweynaha dalka Turkiga haddii ay wax isbedelaana mar walba waan arki doonaa baabuurka caanka uu ku yahay madaxweyne Erdogan marka uu booqashooyin ku sameynayo gobolada kala duwan ee dalka Turkiga ayaa lagu diyaariyay magaalada Istanbul haddii natiijada lagu dhawaaqo oo Erdogan uu guuleysto wuxuu ku laaban doonaa magaalada Ankara oo caasimadda dalka Turkiga ah waxa la leeyahay guuldaro intuusan la kulmin yani natiijada hordhaca Kemal Kılıçdaroğlu haddii guuldaro isagoo ka baqanaya inuu markii 14aad uu kala kulmo madaxweyne Erdogan waxa laga yaabaa inuu iscasilaad uu ku dhawaaqo waa haddii sidaan ay ku dhamaato natiijada laakiin waa wax la saadaalinayo oo telefishinada iyo warbaahinta dalka Turkiga oo kaliya ayaa sidaasi saadaalinaya mar walba waxyaabaha ka soo kordha doorashooyinka waan eegi doonaa iminka aan kula hadlayo wax badan ayaa isbedelay 91.6% ayay maraysaa tirada codin kuraasta la tiriyay Erdogan ayaa hogaaminaya 52.61 ayuu haystaa madaxweyne Erdogan Kemal Kılıçdaroğlu waa 47.3% natiijada rasmiga wali guddiga doorashada kuma aysan dhawaaqin mar walbaana sidaan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay